abbaara 10kii subaxnimo ee saaka ayaa dib looga soo celiyay barta kantaroolka dhinaca galbeed looga baxo ee magaalada Hargeysa mas'uuliyiinta sarsare ee xisbiga mucaaradka ee UCID mas'uuliyiintan iyo xubno kale oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ee UCID ayaa waxay ku socdeen gobolka Gabiley xaruntiisa magaalada Gabiley waxaana dib u soo celiyay xubnaha booliska ee jooga barta kantaroolka galbeed ee magaalada Hargeysa kuwaas oo sheegay in amar sare ay ku soo celiyeen laakiin samay carabaabin cidda amarkaasi siisay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee UCID Faysal Cali Waraabe iyo gudoomiyaha ku-xigeenka Aadan Maxamed Mira Waqaf ayaa labaduba ka hadlay isla dhacdadan iyo ku sugan barta kantaroolka ee dib looga soo celiyay saxaafadda daawadayaasha waxaan ummadda Soomaaliland guud ahaan iyo gaar ahaan gobolka Gabiley xisbiga cadaaladda iyo daryeelka oo ka mid ah saddex xisbi qaran in maanta howl maalmeedu ka fulinayay gobolka Gabiley magaalo madaxdiisa Gabiley oo ahayd xaflad dhalinyaro garabka dhalinyarada ee gobolka Gabiley ay ku qabsanaysay hoteelka Askar halkaas oo ay dhalinyaro kale oo reer Gabiley ama gobolka Gabiley ka socdaana ku soo biirayeen xisbiga xafladaas oo ahayd mid howl maalmeedka xisbiga ka mid ah muddo soconaysay gobolkuna u gudbiyay xisbigu qoraal maamulka gobolka in xafladaas oo dhinacaas u dhacaysa iyo kooxo ciyaartooy ah oo halka kana lagu sidnay kubadihii ay kaga qayb galayeen hawlaha ciyaaraha ama kubadda cagta hawsha iyada waxa dhacday in maamulkii sare yiri gobolka ma soo geli kartaan halka iga dambaysa waxa weeyaan wabartii gobolka Gabiley uu ka bilaabmay caabuda waxa jooga taliya ku-xigeenkii qaybta booliska oo yiri gobolka ma soo geli kartaan xisbiga UCID ma soo geli karo gobolka taasina waxa weeyaan wax aad iyo aad looga yarxsoodo waxana amarkaasi ka yimi waxa weeyaan maamulka sare sababtoo ah xalayto wasaaradda arrimaha gudaha way noo ogolaadeen hawsha iyada inay gobolka ka dhacdo xalay 10kii iyo barkii markay ahayd ayaa la yiri amar baa la soo rogay madaxtooyada ka soo baxay oo la leeyahay ma tagi karaan waxa hadaba la yaab leh in goboladii dalka qaar ka mid ah la yiraaho lama tagi karo annaga ma oranayno gobolkaasi hebel iyo heblaayo iyo wuxuu xidhay xisbi hebel waxay ku tahay ceeb waxay ku tahay karaamadil waxay ku tahay sharaf darro dadka gobolka degan in la yiraaho cid bay u xidhayihiin taa anagu afaygu soo mari mayno mana oranayno gobolka dadkaasi u xidhay sababtoo ah meel baanu kaga dhacaynaa karaamada saddex xisbi way ka hawl galaan saddex xisbi oo dadka meesha gobolka jooga way u dhan yihiin waana u qaybsan yihiin waxaanu leenahay cidii ay ka soo fushay ay ku noqonaysaa hawsha iyada waxaanu leenahay howl maalmeedkii baanu ku jirnay xisbiga kariimuu socon laguma jiro waqtigii ololaha iyo kaambeynka laguma jiro waqtigii raalliga iyo banaanbaxyada hawshan u soconay waa hawsha dheelada Hargeysa kala lagu qabsado xisbi kasta iyo urur kasta uu ku qabsado tiina maanta waxay maraysaa in la yiraaho xisbi ahaan soo geli kartaan gobolka waxaan leeyahay aan ku soo gabagabeynaya iyadoo gudoomiye iga dambeyn doono gobolka Gabiley waxaan leenahay kaalintu kaga jiro Soomaaliland iyo halgankii wuxuu ka soo qaatay iyo dadka ku nool annaga baaldahaba way loogu qoray waxaanu leenahay gobolku cid uma xirna waxa weeyaan in cid kasta oo saddex xisbi ka tirsanba inay hawl maalmoodkooda ka fulin karaan ma waqtiyadii iyadoo la gaarin waqtigii raalliga ama kaambeynka uma socon waa hawsha iyada waa taa processkeedii martay waa taa maanta dhalinyaradii la yiri ka casimay maamulka sare xisbigana inay ka soo qayb galaan la iska hortaagay xafladiina lagu joojiyay oo la yiri ma qaban kartaan waxaan u bandhigayaa ummadda Soomaaliland maamul xumada halka ka jirta waxay leedahay cid bay ku abtirsanaysaa ay leedahay waxaan ku soo gabagabeynaya xisbigu kulliya shabi maayo askarta tan laga soo horjeeday ee tirima galaysaana waa askari amar la soo siiyay amarka cidii soo siisay uunba ay ku noqonaysaa iyadana qaadaysa mas'uuliyadeeda waxaan ku wareejinayaa gudoomiyaha
arrinta horta maanta dhacday dee waa arrin la yaab leh askartuna waa mahadsan daamir baa la siiyey waxa weeye anagu hore anu ogaa in gobolka magacaasa awdal lagu maamulo sharci aan ahayn ka lagu maamulo dalka qaranka Soomaaliland laakiin waxaan garan lahayd doortay ay amarka awdal ku eekaa uu ku soo fiday Gabiley ayaan garan lahayd oo iyana la geliyay sidii awdal loo maamuli jiray awdal baa loo maamuli jiray sidii maqaaxi laga leeyahay magaalada Saaye madaxtooyada marka arrinta waxay tusaysaa arrintani yani daciifnimada iyo halku hogaanka maanku inuu hayo wax aanu xaq u lahayn aanu garanayna macnaheeda marka waxa weeye waa daayirkii mulaada loo dhibay oo kaga geeska gashan jiray baa weeye marka taa ku dheeraan maayo waa tan xusba ugu samaysanayaan doonka ka xoreyno